Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada janalka maanta. Waxaan idiin soo gudbinaynaa waxyaabo laga yaabo inaadan horey u arkin. Haddii aad rabtid inaad wax ku ogaatid waxyaabaha la yaabka leh ee dhaca, sidee ugu fudud ee ku ogaan kartaa, waxaad ku ogaan kartaa sida inaad safar ku aadid dunida dacaladeeda ama waxbarasho. Laakiin intaasi oo dhan waqti uma haysid. Waxaa ka fudud internetka oo aad ku ogaan kartid xogo aad u badan adigoo hoygaaga jooga. Haddaba maanta muuqaalkan waxaan kula wadaagaynaa waxyaabo laga yaabo inaadan weligaa hore u arkin. Intaan u guda gelin haddii aad ku cusub tahay janalka maanta, subscribe dhisi ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Ardayga ugu da'da weyn. Dadka qaar ayaa wax barta iyagoo da'doodu yar tahay, halka kuwa qaarna ay wax bartaan iyagoo da'doodu weyn tahay. Haddaba ugu waxbarashadu ma lahan yaraan iyo weynaan. Laakiin waxaa wanaagsan inaad waqtiga ka faa'iidaysatid intaad dhalinyarada tahay. Ninkan waa dhalinta cuslaatay. Waxa uu bilaabay waxbarashadiisa isagoo jira 59 sano. Waxa uu noqday mid ka mid ah dadka ugu da'da weyn ee fadhiista fasal. Waxaana markii ugu horeysay la soo bandhigay muuqaalkiisa isagoo jira 69 sano. Waxa uuna ahaa fasalka 10aad. Wuxuuna soo kici jiray subaxii waqti hore isagoo isku diyaarin jiray inuu aado iskuulka, waxayna ku qaadan jirtay iskuulka inuu gaaro muddo 20 daqiiqo ah. Waxa uuna ahaa mid ay ka go'an tahay inuu gaaro hadafkiisa waxbarasho. Electric truck maahan wax la yaab leh in tiknoolajiyada sanadba sanadka ka dambeeya ay sameynayso horumar. Gaarigan waa nooc ka mid ah kuwa waaweyn oo leh adeeg koronto oo dhammaystiran. Systemkan waxaa lagu magacaabaa e-highway. Gaarigan leh systemka korontada waxaa laga helaa qaar ka mid ah wadamada Yurub, tusaale Jarmalka. Gaarigan korontada waxaa lagu tijaabiyey Sweden sanadii 2016, waxayna faa'iido weyn u tahay deegaanka iyo yareynta wasakhowga hawada. Duufaan aan caadi ahayn. Adduunka mararka qaar waxaa ka dhaca musiibooyin dabiici ah sida duufaanta tornado oo laga yaabo qaarkeen inay ka arkeen telefishinka iyadoo wax burburinaysa. Waana mid dhif ah in ay dhacdo duufaantan. Mararka qaar waxaad arkaysaa dad duubaya. Waa kuwo aad u nasiib badan haddiiba ka badbaadaan. Duufaantan waa mid halis ah, waxayna ka dhacdaa meelo ka mid ah adduunka. Duufaantan waxay ka dhacday sanado ka hor tuulo ku taala Mexico oo la yiraahdo Rumia. Haddii aad la kulantid duufaantan oo kale, marnaba ha isku dayin in aad qaadid ama aad ka duubtid video oo waxaad raadsataa meeshii aad ka geli lahayd. Qudaarta waa mid ka mid ah waxyaabaha daruuriga ah ee la isticmaalo had iyo jeer, laakiin waxaa jira dadka qaar oo aan u isticmaalin cunid oo kaliya, sida dadkan oo kale u isticmaalaya qudaarta inay ku sameeyaan muusiga, iyagoo u sameynayana qaab cajiib ah, isla markaana qaar ka mid ah dhexda ayay ka duleelinayaan si loogu sameeyo muusiga. Waxaana keenay fikradan markii ugu horeysay nin ku noolaa magaalada Vienna, dalka Austria, sanadii 1998, waxayna dadkii ku noqotay mid la yaab leh. Waxaana ka mid ah qudaarta ay ka sameeyaan qalabka muusiga sida karootada, bocorka iyo kuwo kale oo badan. Mana ahan qudaar u gooni ah ee waa midda caadiga ah ee la isticmaalo. Labada diyaaradood ee isku dhagan. Inta aad ku nooshahay koonkan, waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo la yaab kugu noqda. Twin aircraft waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu weynaa qarnigii 20aad. Waxaana lahaa Mareykanka. Markii aad aragtid muuqaalkeeda, waxaad is leedahay waa laba diyaaradood, laakiin sidaa maaha ee waa hal diyaarad oo kaliya. Waxayna noqotay diyaaradii ugu ballaarneed abid ee la soo saaro. Waxa uuna gaarayay balaceeda 117 mitir, halka xawaaraheeduna uu ahaa halkii saac 304 kilomitir.
dhismaha ugu dheer ee biyo-rogeenka ah. sanad kasta kumanaan qof ayaa u dalxiis taga meelaha ugu qurxoon ee biyaha daadiya adduunka. dhismahan waa mid biyaha meel sare ka soo daadiya, waxuuna ku yaalaa dalka Shiinaha. dhirirkiisu waxa uu gaarayaa 121 mitir. dhismahan biyihiisa waxaa la furaa samarka, waana biyo meel sare ka soo daadanaya. run ahaantii aad ayay u qurux badan yihiin marka ay soo daadanayaan, laakiin qiimahooda ayaa aad qaali u ah. halkii daqiiqo korontada soo saaraysa biyaha waxaa ku baxaya lacag aad u badan. qabowga zaa'idka. qabowga aadka u daran iyo barafka waxa ay caqabad ku yihiin shay kasta, maxaa yeelay wixii dareere ah way fariisiyaan. qabowga zaa'idka ah xitaa waxa uu sababay inay baraf noqdaan, ukunta baabuurta lugahoodana baraf uu isku daboolo. dadka qaar korkoodana baraf ayaa ku samaysma, sida ninkan oo kale. waxa uu gaarayaa qabowga halkan lagu magacaabo Washington Observatory minus 30 degrees Celsius, waana mid aan caadi ahayn. waxaana intaas u dheer dabeel saa'id ah, taas oo xawaaraheedu gaarayo halkii saac 136 kilomitir. xitaa haddii biyo kulul dhulka lagu shubo ma gaarayaan dabaysha dhacaysa awgeed. Gaintis Bone Cake. duulashahan in aad samaysid maahan mid sahlan. waxa uu u baahan yahay xirfad, khaasatan marka la jarjarayo. iska jar maahan ee waxa uu u baahan yahay marka hore barasho. muxuu yahay Bone Cake? waa mid ka mid ah duulashooyinka ugu dhadhanka wanaagsan uguna weyn, waxaana si isla eg u jari kara qof professional ku ah sida ninkan oo kale oo gabi ahaantiisba isla wada ekaysiiyey. kaynta. ma jeclaan lahayd inaad mar uun booqatid qaar ka mid ah kaymaha ku yaala dunida si aad ugu soo qaadatid waqti ka mid ah noloshaada? haddaba waxaa jira kaymo ka duwan kuwii aad taqaanay, oo haatan dhismayaashii qaar ka mid ah ayaa noqday kaymo sida aad muuqaalkan ka arkaysidba. waxa ay ka kooban yihiin 2 dabaq oo dhaadheer. kan koowaad dhirirkiisu waxa uu gaarayaa 111 mitir, halka kan labaadna uu yahay 76 mitir. waxayna ku yaalaan magaalada Milaan ee dalka Talyaaniga. waxayna gaarayaan dhirta ku taala 900 oo geed, 5,000 oo geedaha fiyooryaasha ah iyo 11,000 oo ubax. Flooding National Park. India waa waddan aad u weyn, lehna meelo badan oo loo dalxiis tago. goobahaasi oo ah kuwa soo jiidasho leh, laakiin dad yar ayaa yaqaan. waxaana ka mid ah jasiiraddan la yiraahdo Kibo Lamjo. waxay ku taalaa waqooyi bari dalka Hindiya. jasiiraddan badkeedu waxa uu gaarayaa 40 kilomitir square, waana mid ka mid ah meelaha ugu biyaha nadiifsan adduunka, waana mid leh dhir doog ah, taas oo xitaa ay ku noolaan karaan duunyada. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahayna channelka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. waa inoo muuqaal kale. mahadsanidin.